marka aad maqasho dalka Japan durba waxaa kuu sawirma duni ku horumartay tiknoolajiyada casriga ah ee maanta iyo dal kamida kuwa ugu tunka waaweyn dhaqaalaha adduunka. taasina ma ahan mid kugu cusub, waayo ereyga Japan waxaad maqli jirtay tan iyo yaraannimadaadii. halhayska ugu badanna waxa uu ahaa wallaahi nooc min al-Japan ayaa tahay, oo loola jeedo waxaad leedahay sifo kamida sifooyinka dadka indhayarta. markii aad soo garaasatayna waxaad aragtay agabyo badan oo hareerahaaga yaala oo lagu leeyahay waxaa laga keenay dalka Japan. laga bilaabo shayga ugu yar ee gacanta aad ku hayso sida remote-ka dhalada gurigiina taala iyo badi gaadiidka aad ku socdaasho sida Nissan, Toyota iyo wixii soo raaca ayaad sheegi kartaa. waana taas sababta Japan ay kaga socnayd kuwa kale. ha yeeshee guusha caadiyaalka kuu ah ee aad qirayso in dalkani uu gaaray kuma dhalan sida aad iska dhaadhicin karto ee ah inay keliya xoogga saareen wax soo saarka dibadda si ay dunida kale ugu tiirsanaato. taasi waxaa la oran karaa waa tallaabadii ugu dambeysay ee hore u qaadeen, waxaana shalay iyo maantaba mudnaanta koobaad leh tallaabooyinka guud ee dhexdooda guusha ka soo hooyay guulo muuqatana markaa ay ka gaareen ka hor intaysan guusha weyn ee dibadda taalla hantinin. mararka qaar waxaa la yiraahdaa muuqaalka kore aalaaba laguma qiimeeyo humaagudeedka qofka laabtiisa ku laabgadoomaya, waayo waxay kala dirayaan fariimo isdiida. balse marka aynu qaadano murtida tiraahda weel walba waxa uu dhidadaa inta qaadkiisa uu leegyahay, waxaan ka marakici doonaa in guulaha muuqda ee dalalka markaa horumaray ay gaareen laga qiyaas qaato sida uu markaa u egyahay waaqicooda gudaha. haddaba maxay tahay sirta qarsoon ee guusha dalka Japan? su-aashan had iyo jeer dunida kale ee Japan la tartamta waxa ay u raadin jireen jawaabtii ku habboonayd. inkastoo oo markaa la ogyahay in sirta sancada mashiinka ee reer galbeedka kala yimaadeen, haddana waxay isweydiin mudnayd sida dalkan dhaca Aasiyada shishe uu xawli uga tegay dunida kale, taas oo keensatay inay ugu yaraan markaa mid ka mid ah 7 meerayaal ee qorraxdu ay ku wareegto. waayo horumarkiisu waxa uu ka ficnaaday dunida galbeedka, waxaanay u tixgeliyeen halhayska ah Planet Japan. si kastaba ra'iisul wasaarihii Japan ayaa mar la weydiiyey sirtooda, waxaase uu markaa ku soo koobay 3 sifood: cilmi, camal iyo akhlaaq. siinta ahmiyadda weyn ee aqoonta iyo howlgalka ama waxqabadka waa mid dunida horumartay ku hogaamisay heerka ay maanta joogaan. taasina waa cilmi iyo camal. hase yeeshee dheeraadka dadka Japan u raacsan waa akhlaaqda amaba dhaqanka suuban. loolanka dunida ay ku wado ama ku wada jirto waxa kaliya ee markaa ku guuleysta midka wax dheeri ah markaa la yimaada oo ka duwan waxa dadka kale ay haystaan. uma socdo inaan ku soo gudbiyo akhlaaq qariib ah oo ay Japan haystaan oo dunida kale markaa ay ku soo biirisay, kaamana dhaadhicinayo inay yihiin kuwa aadaabta iyo cilmiga adduunka oo dhan uu markaa iyagu kaliya ay ku yihiin oo markaa iyaga kaliya ay haystaan. laakiin waxa ay dheer yihiin sifooyinkaas oo isbiirsaday isla markaana isku si loo wada isticmaalay. si kastaba maxay tahay sirta ugu weyn ee dadka reer Japan ay markaa guulaha ku gaareen? waa arrinta koobaad, ilaalinta waqtiga ayay dadka reer Japan aad caan ugu yihiin, waayo waxa ay markaa waqtiga uga faa'iideystaan sida ay tahay, iyagoo aaminsan in waqtigu marnaba uusan istaagayn. sida ugu muhiimsan ee maaragtay waqtiga wax looga qabsan karana ay tahay wixii naftooda markaa horumarinaya in waqtiga ay haystaan ay qabtaan. ixtiraamka waxa la yaab kale waa in dadka Japan lagu sifeeyo ummad huwan qadarin dabiici ah. waxay caado ahaan madaxa u raariciyaan amaba u rukucaan qof walba oo muwaadin ah iyo markaa shisheeyaba oo dalkooda jooga, taasoo markaa inta ugu badan ee loo sifeeyo amaba loo aanayo inay tahay ixtiraamka ay aadanaha u hayaan.
arrinta saddexaad ee dadka reer Japan lagu sheego sirtooda guusho waa ammaanada. haddii aan ku iraado tuug wax dhaca lagama yaqaano gudaha dalka Japan, fadlan ha isaluugin oo markaa ha ila yaabin. ummad walba waa sida loo layliyo naf ahaan iyo sida loo markaa ababiyo markay abaydinka yihiin. bilowgii hore ee dugsiga ilmaha la keenayo waxyaabaha markaa ugu waaweyn ee kobciya ama maskaxdooda markaa lagu shibo waxaa ka mid ah dadka reer Japan ilaalinta ammaanada, taas oo markaa ku sifoobeen amaba ay yihiin sifaadka caanka ay ku yihiin laguna tilmaamo inay yihiin arrimaha u keenay guulaha degdega ay gaareen. shaqaalaha nadaafadu ayaa ka mid ah markaa mas'uuliyiinta cidda iska saarta inta badan oo la hayo ama la sheego ama qodobka afraad markaa guusha dalka Japan uu gaaray lagu sheego ama inay qayb ka yihiin, taasoo ah in shaqaalaha nadaafadu ay maaragtay mudnaan weyn siiyaan sidii bay'ada loo nadiifin lahaa. qashinka iyo bulshada waa qodobka markaa shanaad oo dadka bulshada maaragtay reer Japan waxaa lagu ababiyaa inaanay qashinka dhigin meelaha maaragtay aan loogu talagelin, isla markaana ay ilaaliyaan oo qayb ka noqdaan nadaafada bay'ada iyo deegaanka ay markaa ku nool yihiin, taasoo carbinta kasoo bilaabata ilmaha yarka markuu markaa dugsiga tago loo sheego in qashinku uu yahay waxa ugu adag ama maaragtay waxa ugu daran qof bini'aadina uu la joogo. wax akhriska ayaa ah qodobka lixaad. dadka reer Japan waxay ahmiyad aad u weyn siiyaan cilmiga iyo waxbarashada. markaad cilmiga iyo waxbarashada maaragtay mudnaan siiso waxaad jeclaanaysaa inaad wax akhriso, waayo waxaa la sheegaa amaba maaragtay lagu tilmaamaa qof walba waxa uu garaadkiisa la eg yahay inta uu akhriyo. marka waxaad ka dareemaysaa dadka reer Japan sida akhriska ay u jecel yihiin in ay keentay in garaadkooda uu koro. garaadkooda oo korana waxa ay keenaysaa in maaragtay ay timaado wax soo saarkooda inuu kordho. arrinta ugu maaragtay dambaysa waa baahiyaha gaarka. ummad walba oo meel ku wada nool waa arrinta toddobaad ama qodobka toddobaad ummad walba oo meel ku wada nool waxay wada qabaan baahi, waxayse ku kala duwan yihiin noocyada baahida haysa. dadka qaba baahiyada gaarka ah oo markaa lixaadkoodu ay wax ka dhiman yihiin Japan waa dalkii ugu horreeyay ee u sameeya hindise ah in ay markaa iskood isugu filnaadaan. qofka aragala wuxuu min markaa guriga ilaa goobta uu shaqada ka tegaya ama waxbarashada uu markaa u danaystaa kaalmo la'aan oo cid markaa kaalmaynaysa aysan jirin. waxaa loo sameeyey jidadka u gaarka ah oo ay maraan tan iyo sanadkii 1974. saaxiibayaal waxaan intaas kusoo gabagabaynaynaa mawduuceeni maanta oo ku saabsanaa sirta guusha guud ahaanba dalka Japan. tan iyo mawduuc kan xiga waxaan idinkaga tegayaa fi amaan illah.